mudanayaal iyo barwooyin sharaf weyn ayay inoo tahay aniga dawladda iyo shacabka galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya. shirkani wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya. walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dawladda galmudug. waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hogaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogashan. inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinii iyo howlmaalmeedkiinii haddana waxaad u timaadeen gogasha galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda, horumarinta, dib u heshiisiinta, xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dawladnimada Soomaaliyeed. walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay'adaha dastuuriga ah. mudanayaal iyo marwooyin ujeedada gogosha galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah. taas macnaheedu ma ahan in ay taladu innaga inagu kooban tahay. sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhammaystirka dastuurka, dimuqraadiyeynta, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan qaran, dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha. si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanasul, is-ogolaasho, talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla. mudanayaal iyo marwooyin dalkeennu wuxuu soo maray geedi socod dib u heshiisiineed oo dheer. markii ugu horeysay wuxuu miro dhalay sanadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Jabuuti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed. xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyay dhinaca dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaaleynta dalka. muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faanta ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar. doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. mudanayaal iyo marwooyin xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taalla gaar ahaan caasimadda. waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo. walaalaha Soomaaliyeed
waxaan u caddaynayaa in ujeeddada gogoshaani ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale waxay xal ka ahaato dhammaan howlaha taagan ee u baahan maaraynta. mar kale waxaan idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshaan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dowladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshaweynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshaan wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya. mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharafta waa u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca dowladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug. waxaan leeyahay mudanayaal iyo marweyn soo dhawaada, ku soo dhawaada deegaankiinni iyo dalkiinni, ku soo dhawaada taladiinni oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wada jir ah, is afgarad iyo heshiis loo aayo.